السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا markaad aragto transformation saan oo kala ah 9 kiilo oo hal bil iskiri daay waxa ogahay maskaxdaadu waxay durba aadaysaa crash diet qof gaajo lagu dilay aalmiita tiro badan la siiyay naftana laga qaaday laakiin waxa ogaataa starvationka ama qofkoo la gaajeysiyo inta badan hal oo qofka sustainable u noqoto maahan yani wax uu qofka sii wadi kara maahan 90% pound walbo ama kiilo walbo oo aad gaajo ku riday oo aad gaajo aad isku riday maalinka ugu dambeeyso oo aad barnaamijyada joojiso dibay u soo laabtaan transformationka gabadhan aad arkaysid wax gaajo qof lagu dilay shaqo kuma lahan bal iska dhaafee waxaan u isticmaalnay xeelad saynis ah afar caado oo adiguba maanta haddii aad isku daydo in aad dhaqan geliso qaab safe ah caafimaad uu ku jiro oo miisaanka kaaga dhacayo sidee u sameeysaana insha Allah ta'ala damaadka videogan aan ku kula wadaagi doona hadii Ilaahay yira waxay intaan video guda galin 70% dadkiinaan maanta videogan daawanayo YouTube ku wuxuu tusinaa inaadan subscribe ahayn waxa aaminsana maanta waxa ii daawanaysid waxaad raadinaysid waa natiijo waxaad ka cararaysid waa shortcut iyo waxyaabo yar oo fudud oo berito caafimaadkaaga dhibaato u keenayo inaadan sameeynin YouTube kana dabcan videoyadeeda kaliya wuxuu tusinaa dadka channelka subscribe-ka u ah oo kaliya hadii videogan xitaa wax yar uu ku caabiyay maalin subscribe dheh dabcan adiguna wax weyn kaama biinayso anagana wax weyn inoo tahay pointi ugu horeeya hadaa ku boodana isku day inaad prioritize garayso waa ogahay inaad already fahansantahay waxaan kuu soo wado proteinka jirkaaga galaya ee maalinlaha ah dadku inta badan markay rabaan inay weight loss sameeyaan durbo waxay ku foofaan inay cuntadu haafridaan cuntadu ka kala tagaan taas xal wanaagsan oo caafimaad maahan mar walba oo calorieska cuntada aad cunaysid aad isku daydo si drastically ah inaad hoos ugu dhigto waxaad ogaataa waxa jirkaaga hal mar israaci doono baruurtii aad ridaysay iyo muruqihii la rabay inay jirkaagu caafimaadkooda ka shaqeeyaan taasna waxay sababtaa in BMR kaaga uu hoos u dhaco basal metabolic rate kaaga proteinku ama cunooyinka proteinka leh waxa la dhahaa highest thermic effect of food waxaan TEF ka loo yaqaano tusaale hadaa ku siiyo haddii aad subaxdii high protein quraac ah aad cunto ama qadadii aad high protein qada ah aad cunto waxaad ogaataa proteinkaas hadduu yahay 250 calories ama 300 calories ah 100 calories oo proteinkaas ka mid ah jirkaagu wuxuu u isticmaalaa in proteinka aad soo cuntay lagu burburiyo meesha waxaa ka faa'iideysaa badalka jirkaagu uu 500 calories oo qaato lagu dhihi lahaa 400 calories oo qaadana badalku lagu dhihi lahaa 300 calories oo jirkaaga soo gashay 200 calories soo galayso waa faa'iidooyinka inta badan cunooyinka proteinka laga helo proteinka sidoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay wuxuu stimulation ku sameeyaa ama wuxuu aad u kiciyaa hormoonadka loogu talagalo qofka inuu dhereega dareemo inuu dhereegsanaado GLP-1ka iyo BYY-ga oo inta badan inta ay inactive ka yihiin ama jirkaaga ay ka maqan yihiin jirkaaga maanta oo dhan uu craving ka dareemo macaan aad raadinaysid gaajadana daqiiqad ay ku soo marayso proteinku wuxuu ku wanaagsan yahay labadan hormoon ba wuxuu ku sameeynaa inay active ahaadaan at the same time na aadan raadinin wax macaan ah ama craving uusan ku qabaninba maxaan sameeynaa marka isku day marka saxankaaga mar walbo in protein laga helo 25 gram ilaa 40 gram each meal aad cunaysid proteinkaas kaluun noqon karaa hilib digaag noqon karaa lean beef noqon karaa oo hilib lo oo noqon karaa sidoo kale tana ukunta iyo proteinadan kale caadiga noqon karaa waxaana kaloo isbartaa mar walba aad saxankaaga ku rokman tahay in proteinka uu noqdo waxa ugu horeeya ee calooshaada galayo aadan ku bilaabin carbohydrate-ka meesha saaran nooc raba ha noqdo qodobkeena labaad marka isku day inaadan calorieska aadan cabin cunooyinkan liquidka ah ama dareeraha ah sida suuq markaad soo kacdo kale koob qaxwa aad ku bilaabaysid Starbucks kan aad marayso qaxwada adigu aad guriga ku sameysanayso smoothie gan healthy ah ee fruitka ka sameysan aad guriga ku sameysanayso dhamaantoodu maskaxdaada uma aragto cunto caadi ah la cuno bal iska dhaafe waxay trigger ku sameyn doonaan insulinkaaga taasoo keenayso maalinkii oo dhan insulinkaaga inuu levelkiisa high noqdo waxayna kugu qasbi doontaa
in jirkaaga uu ku jiro marxalad uu baruur keydinayo. waxaa taa uga dheer fruudka dadka inta badan shiido. waxaa ogaataa fruudku fiber uu leeyahay, laakiin waa goorma marka aad calaalinaysid jirkaagana aad u ogolaanaysid inuu fiberkaas ka faa'iidaysto. laakiin marka aad shiidato waxaad ogaataa waxaa si toosa beerkaaga ugu geynaysaa sokor oo aanan wax biyo ah la marinin. iska dhaafa marka shaaha subaxii aad ku bilaabaysaan, qaxwada aad subaxii ku bilaabaysaan, fruudkan aad moodaan inuu healthiga yahay, waxaasoo dhan waa waxa safarka idinka reebaya. ku bedela marka shaahaaga shaah cab, laakiin sokorta tirada badan shaaha ka dhaaf. qaxwo isticmaal, sokorta tirada badan qaxwada ka dhaaf. haddaad ka fursan weyso sokorna sweetenerada caadiga la isticmaalo sida stevia baashan dadka macaanka ee isticmaalaan iyo isticmaal. ogow haddaa subaxiyo kaliya aad iska dhaafto liquidkaas aad isticmaalaysa sida qaxwooyinkan aad maraysaan leh, waxaad badbaadin kartaa 300 ilaa 500 oo calories oo macno dara ah, jirkaagana aan waxba ku soo kordhinaynin inaad ka badbaado. pointigeena saddexaadna waxaa needka loo yaqaano. needku waa non-exercise activity thermogenesis. ma ogtahay dhaqdhaqaaqyada caadiga ah sida dailiga aad u samaysay steebyada ku xisaabiso ee guriga marka aad joogto alaabta dhaqanayso, guriga dhexdiisa aad ka dhex shaqaysanayso, ama xafiiska marka aad joogto taleefanka aad ku hadlaysid oo aad ku soconayso, waxay buuxin kartaa 15 ilaa 20% energy expenditure jirkaaga inuu banaanka u soo saaro la rabay 100 ilaa 20%. halka exercise-ka halka saacaad sameynaysid kaliya uu ka gubi karo 10%. dabcan needka ka muhiimsan mararka qaar si haddaa u fiiriso exercise-yada caadiga ee jiimka aan ku sameynayno. tusaale aan ku siinaa, qofka markuu jiimka tago oo saacad iyo bar uu ahlamiteeyo, waxaad ogaataa mar walba waxaa kor noqonaya cortisolkiisa, sidoo kalena jirkiisa wuxuu ku qasbanaanaa inuu cunto raadiyo. qofkaas hadduusan ahayn qof isxakameyn kara, way sahlan tahay inuu cunto qaldan cuno. laakiin needka gaajo tiro badanna ma lahan, energy badanna waad gubaysaa, at the same time-na craving iyo cunto raadisna ma galaysid. taa macnaheedu ma ahan inaan ku dhahay halka saac ee exercise-ka needka ku bedelo. maya, needka mar walba extra ha ku ahaado guriga markaad joogto, markaad xafiiska joogto. isku day taleefanada marka aad ku hadlaysid inaad dhaqdhaqaaqdo. aniga hadda tusaale ahaan subaxii salaad subax markaan tukado, adkaaru sabaaxa markaan akhrisanayo iyo xisibka quraanka ee subaxii aan akhristo, socodaan ku akhriyaa, steebyadaydan waan ku buuxiyaa. labadan shay marka haddii aad samayso needkaagu wuu ku buuxsamaa. isku day inaad gool yeelato 8,000 ilaa 10,000 oo talaab ah inaad maalin walba samayso. sidoo kalena haddaa caadadan samayn karto way wanaagsan tahay. cunto walba aad cunaysid marka aad cunto inaadan la fariisanin ama aadan ku seexanin oo 10 ilaa 15 daqiiqo oo socda aad samayso. taa kaliya waxay kaa caawinaysaa in blood glucose-ka jirkaaga uusan kor u kicin, insulinkaagana uu xadiga loogu talagalo uu mar walba uu ku taagnaado. afarna hurdada iyo controlka cortisolka. cilmi baaristu waxay isku raacday fiirin 6 saacadood ka yar aad seexata habeenkii inay 20% kor u qaadayso hormoonkan ghrelin-ka loo yaqaano. waxaa laga yaabaa maalin walba markaad soo kacdo oo aad shaqada soo aado craving waalan inuu ku qabto, qaxwo aad raadayso maantoo dhan maqaayadaha qaxwada aad ka dawar wareegato, kadibna wax un macaan aad ka soo iibsato. laakiin kuma fikiraysid xaloo dhan aad TikTok ku dhex jirtay, xaloo dhan aad scrolling sameynaysay, hurdadaadii qayb ka mid ah social media aad ku dhamaysay. hal midna weligaa ogow, Mareykanka haddaad joogto oo habeen lagu gaaro, qof Soomaaliya iyo Yurub jooga bilaaba inuu fiidiyoyo soo dhigo. haddaad Soomaaliya iyo Yurub joogtidna oo aad rabto habeenkii inaad seexdato, qof Mareykanka iyo North America Canada jooga bilaaba inuu video soo geliyo. adduunkan aad arkaysid waa round, saas uu iskugu wareeganaa. adigana marka haddaad noqoto qof labadii dhinac u dhaxeeya oo hurdadaadii meesha aad ku weyso, waxaa kaloo ogaataa 18 cilmi baaristu waxaa la isku ogaaday 100% leptinka oo ah hormoonka inta badan awoodda maskaxda u gudbiya inay dhereg jirto, dheregta lagugu hayo craving-kana lagaa celiyo, hoos u dhacaa qofka markii hurdadiisa 6 saacadood ka yarta. hurdadu waa waxa ugu muhiimsan, bal iska dhaafi hadda video dhan haddii la igu dhaw hurdada ka sameey, waxaan ka samayn karaa video 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo gaaraya. ahamiyadda ay hurdada jirka u leedahay iyo caafimaadka. laakiin balaayo waxay ka taagan tahay maadaama ay tahay wax sahlan, freena aan ku haysano, in agteenu ayna macno weyn ku lahayn. miga aaminaysa haddaa ku dhaho 50% miisaanka ku saaran hurda la'aantu ka yimid. waxaa isbartaa marka 7
ilaa 8 saacadood dadka qaar aynoo ma heli karayaan laakiin 7 saacadood oo hurda inaa habeenkii hesho 30 daqiiqo ka hor taleefankan iska bakti intaanan jiifkaaga la gaarin waxaadna iska ilaalisaa inaa cunto culus cunto 2 ilaa 3 saacadood hurdadaada ka hor lianuu jirku 2 marxaladaad gelinaysaa markaas marxalad dheefshiidkaaga uu shaqeynayo dhiigaagana ay noqonaysa in dhinacan loo soo wada rido iyo marxalada kale oo ahayd in saacadaadii la damiyo oo maskaxdu ay ku diyaariso inaad seexato in miisaan la iska rido bilooyinka ugu horeeyo isbuuca ugu horeeyo markaad aragto keliyihiyo ku bararay calooshaadiyo weynaatay dharkiyo kula ekaan waayey oo wax iska sahlan qofkana wiigaga ugu horeeyo waa motivated uma baahno in uu wax soo dhageysto laakiin waxa ogaataa in weight system sustainable aad iskaga rido waxay u baahan tahay system waqti dheer kuu shaqeyn karo oo weliba caafimaadkaaga long term ka shaqeyn karo taasna keliya waxaa kuu sahli karto 2 mid inaad macalin ka warhayo programyadiisana kugu soo dara aad hesho ama in aad isku daydo dhowr shayba mar inaad baroobayso ilaa aad ka hesho wixii adiga ku shaqeynaya almuhim haddii aad rabto inaad barnaamijyadeena 9 cisho ka soo qayb gasho oo ay ku fududaato in miisaanka uu kaa dhaco aniguna aan noqdo darabalka gaarigaaga insha allahu tacaala wadi doona oo kaa warhayn doona cuntadana kuu sixi doona linkiga hoose ayaan kuu soo dhigi doonaa halkaad igala soo xiriiri lahayd dabcan barnaamijku haddii uu ku anfaco ama aan isku afgaranana waxaan ku ballan qaadaa insha allahu tacaala 4 bil ama 6 bil ama 3 bil soo socoto halka aad hada taagantahay inaadan sii taagnaanin haddii aad awoodi weysana barnaamijkaas aad ka bixi weyso waxaan diyaar u ahay mar walbo inaan meeshan ka caawiyo qof walbo walaalo ah oo aan kuu soo gudbiyo wixii saxda ahaa ee aad isku bedeli kari lahayd oo walaalka ku sabro ka codsanay dabcan haddii aad videogan ilaa inta ila soo gaartay please like saar sidoo kale tana nagu soo biir hadda qof walaal la wadaagi kartana isaabtiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.